naagtan waxay u timaaday famil baskan wada saaran kadib waxay bilowday inay ninka aad u amaanto iyadoo ku dhehayso aad u qurxoonta naagta fulxumo badan sida ula socotaa kadib isaga xaaskiisa waxay weydiinaysaa adiga hadalkan ashigiisa maxaa ula jeedaa laakiin iyadu ma u jawaabayso taas bedelkeeda waxay bilaabay inay ninka taataabato foodada markii ay sameeyday kadib gadaal iska fadhiisatay markii ay ka tagtay midkan wuxuu taagan yahay sax waay naagtaas hadalkeeda aniga aad kaaga qurxoona adiguna ugu yaraan xataa ma ishagaajinaysid oo si qurxoon ma u labisanaysid waxaa jira dumar adiga sidaadoo kale ilma haysto taas bedelkeedana aad u qurxoon oo labisto laakiin iyadu waxay u sheegtay inay guri leedahay ilmana ay haysato waxaas inay sameeyadana aysan waqti u haynin kadib isagu wuxuu bilaabay inuu soo aado dhinaca midii isaga ka waashay midaan intay soo istaagtay waxay aragtay ninkeedii iyo midii oo wax khaldan wada sameeynayo xaaskiisa wuxuu ku dhahaa adiga hadda kadib nagu kala wadi ma ku rabi cunugeygana waxaan u imaanaa waqtiga aan u baahdo iyaduna waa tanaahay maxay sameeydaa iyadoo niyo jabsanay baska iskaga soo degtay kadib gabadhan kale oo meeshan iska mareedaa waxay maqashay cidda deriskeeda cunugooda inuu si kal iyo laba u ooyinayo way fiirisay markii ay aragtay qof inuusan la joogin waxay go'aansatay inay daaqada ka soo gasho intay soo qaaday waxay aragtay cunuga hooyadiis inay meeshan fadhido ooyinayso waxay u sheegtay inay maqasho cunuga yarka ah oo ooyinayay kadib ay go'aansatay inay guriga daaqada ka soo gasho laakiin iyadu waxay dhehaysaa waxaas oo dhan waxa iga daran anigoo u jeedaa ninkaygu naag kale iga raacay dharkiisii muusan qaadan oo weli guriga yaalaan aniguna waxaan sugaa intuu ka imaanayo isla markaas isagu gurigoo dib ugu soo laabtay iyaduna waa tanaa soo laabashadiisa way ku faraxday wuxuu ku dhahaa war aniga dharkaygaa soo doontay meesha iga leexawada waa qaadanay isaga oo bilaabay inuu dharkiisa boorsadan ku gurtay uu imaanay waxay ku dhehaysaa adigu soo ma rabtid inaa midii camal iska dhiga waa tana aniga xitaa waa marsan karaa wixii ay marsanayday laakiin isagu niyaddu ka sii jebiyay isagoo u sheegaya hadda inay u ekaatay naag horor ah iyadoo baryaysa inuusan guriga ka tegina waxa u imaaday saaxiibadiis gaarigeeduna raacay kadib gabadhii deriskeeda aheeda waxay ku dhahday ninkaasaan oo dhan maxaa isugu xirtay mid kale heli kartaa haddana waxaa sameeydaa inaad shaqadaadii dib ugu laabato aana wiilkaaga yarka mas-uuliyaddiisa ka taxadarto wax badan deriskeedu markii ay la hadasho ugu dambayn way ogolaatay inay shaqadeeda dib ugu laabato hal sana kadib labadii waa kuwaana meel shirkadahay yimaadeen midkaana waxuu rabaa inuu shaqo ka helo saaxiibadiisa waxay ku dhehaysaa waxaan kaa rabaa inaad lacag badan isiiso aniga hadda $100 ay siiso waxna ma ii tirayso wuxuu taagan yahay shirkadan haddii ii qaadato maamulaha xafiiskooda ballan waayo waxaan ku siinaa lacagta ugu badan oo aad u qalanto isla markaasna waxaa u yimaadeen ninkii shirkadan iska lahay wuxuu u sheegaa hadda inay xaaskiisa soo socoto xoogaa kadib markay u timaadana ay xafiiska ugu wada yimaadaan annaguna waxaan ogaanaynaa midkan iyo ninka shirkadda iskale inay hal iskuul wada dhiga jireen maadaama ay ninkan saaxiiba yihiin wuxuu ku dhahaa aniga ma sugi kari xaaskaaga ee aniga ii qaado shaqada ii qaado saaxiibka ahee laakiin isagu wuxuu u sheegaa xaaskiisa inay shirkadda haaf leedahay sidaas darteed oo saxiixeeda sugaayo kadib midaana ninka booska waxay ku dhehaysaa musqusha rabay ma soo tusi kartaa meesha ku taalo markii uu musqusha keeno waxay ku dhehaysaa aniga musqul maanan rabin ee adiga ku rabay inaan kula hadlo runtii haddii la sheego adiga waa shidan tahay anigana adigaaba kugu haystaa wuxuu ku dhahaa adiga waxaad u egtahay kuwa lacagaha caabudo laakiin aniga waa guursaday xaaskiigana waa ku qanacsanahay dhinaca kalena midkan isagoo xafiiskii ku jira waxa u yimaaday xaaskiisii oo hal sano ka hor ka tegey wuxuu taagan yahay meeshan maxaa u timaaday ha idhihin le meeshan shaqa lee ka soo doontay kadib meesha waxaa yimaadeen ninkii booska ahay aniguna waxaan ogaanaynaa labadan inay isguursadeen waxay ku dhehaysaa ninkan iska baro waa ninkayga iyo aabbaha wiilkayga wuxuu weydiinaa oo taas micnaheedu waxay tahay inaad shirkadan haafka leedahay adigu haahay ku dhehaysaa arrintaas ula yaabaysaa waa ay taqaanaa adigu booskan boos ka sarreeya u qalmaa kadib midana waxay bilaabaysaa inay iyada aflagaadeydo laakiin booska wuxuu ku dhahaa saaxiibka ma oga miya xoogaa ka hor inay ii timaaday kadib ay ku dhahdo waa kugu haystaa markay aragtay in la fashilo meeshii isaga carartay kadib midkan wuxuu bilaabaya inuu xaaskiisa hore u cagajugleeyo isagoo ku dhahay shaqadan haddaa isii weydeen cunugayga yarka waa kaa qaadanaa arrinkaas iyadoo ka welweshay ninkeedu wuxuu ku dhahaa arrintaas dhan ha ka cabsan wiilkaas adigaa dhalay aniguna waxaan ku guulaystay biladda abuukaataha ugu wanaagsan gobolkeenna waxaan diyaar u ahay inaan ku difaaco hadduu midkan maxkamadda ku soo saaray ha ka cabsan arrintaas saaxiibkiis horena wuxuu ku dhahaa lacag abuukaato ku qabsata xitaa ma haysatid ee qilqilkaas dhan ha isgelin asna waa kanay muxuu sameeyaa meeshii dhan muu isaga tegay isagoo xanaaqsan saaxiibadiisa oo bannaanka ku sugaysana waxay ku dhehaysaa aniga nin aan shaqaysan ma u baahni ee furaha gaarigayga ugu soo wareeji ma u malaysaa intaas ku dhacday inuu u qalmo muuqaalkana la ignoo saar